turjubaankuna wuxuu xasuusiyay waxba ku xasuusiyaa moogtahay berigii maxaa ahayd qaxootiga Somaliland dagaalkii ay ka yimaadeen Ingiriiska yimaadeen islaamahayna waad ogtahay markay xanuunsadaan tilmaantoodu waa tilmaan yar cajaayiba moogtahay markaasuu dabeetana maxaa ahayd inan kaloo isaguna aan si wanaagsan u aqoon Ingiriiska bay ka haysatay masay tirooy waan xanuunsanaya kaalay turjubaan markaa maxaa ahayd waxa laga sameeyay recording oo wuxuu sameyn jiray maxaa ahayd dhakhtarku si uu dabeetana uu dadka kale u fahansiiyo sida maxaa ahayd dadka loogu turjubaano waa la recordinaya labadooda midna ma oga markaa islaantii baa dabeetana soo fadhiisatay wuxuu yiri maxaan ku idhaahaa waxaad ku tidhaahaa hooyo habeenkii waran aan arkaayo baa intuu sidaa u soo duulayo halkaa wadnaha laygaga dhuftaa ninkii dhakhtarkii baa yidhi maxay tidhi markaasuu yidhi sir woman say spear hit the hard markaasuu yidhi yaa wuu fahmi waaye wax kala sheeg hooyo waxaad ku tidhaahaa nin xoog loon arkaayo habeenoo dhan budkay la dhacaayo meel walba waan ka jajabanahay masuu yidhi lady say big man hit night ninkii baa yaabay oo yidhi yaa nin weyn ba habeenoo dhan dilahaa biliiskaa loogu yeedhay gabadha gurigaa lagu dilaayo marka waxa weeyaan laftarkeennu waxa weeyaan marka aynu af Ingiriisiga doonayna inaynu baranno waxa weeyaan waxaynu ka baranaa inta badan isagoo jajaban inamada waxaan ula hadlayaa inamo inta tahriibta waxa ugu badan inamo inta jaadka cunta waxa ugu badan inamo inta meelaha fadhida ee hablaha haleynaya intay shaad aanay lahayn soo gashadaan iyo surwaal aanay lahayn soo amaanaysta baabuur aanay lahaynna soo kaxaysta telefoonkana xabiibi dabadaan ku taaganahay waa idinka ka tobacaanada intuu soo deetanaysa soo giijiyo dhexda dhiidda ka soo xidho dabeetana tallaabada yare shalakhda daa u soo fura inantu markay sidaa u jaleecdo tidhaha waaw wallaahi malaha kanuun bay dhaqi karaaya waxa la wuxuu ku dhaqayaa ma jirta intuu sitaba saaxiibkii baa leh inamo idinkaa u badan inta WhatsAppka iyo Facebookka halkaa taagane intuu soo maydho isu soo kijiyo raislaha tagi u dhag iskaga soo siiyay dabeetana waji aanu lahayn halkaa soo dhigtaa dhaab I am Mr. Chama waxaan ahay I am an engineer I earn so much money I have a car, I have a house, I have this one, I have that one, din. Facebook ku soo dhiga habluhu markay arkaan yahay Mr. Chama wallahi baabuur buu haysta kan uu haysta waayo waa idinka inamo marka waxaan idin leeyahay war beenta iska daaya war hablaha luminaysaan iska daaya war baabuurta aad ku khawaysiinaysaan ka daaya taasu ogow midna waan idin sheegaya markaad adigu mid been u sheegaysid waxa laga yaabaa aadna walaashayna been loo sheegay marka u tudha walaalihiin nafsigu maxaa ahayd ma fogo berigii hore waxa la diin buu soo raaci jiray wallahi maanta imaka farduu soo raaca oo marmarna baabuur buu soo raaca marka nafsigana iska ilaaliya mid labaadna waan idinku sheegan idinku soo khatimay marka aad guursataan inamo maanta inamadan u saaranahay markaad shukaansanaysid ba waadiga halkan
حبيبتي I love you how are you I miss you war markaad guursataan maxaa kuu diiday nayaahe cuntadii ma keentay nayaahe dharkii ma ii maydhay war nimanayaho carruurtayga celi kan kale igale war xabiibti macaanti meeday wax ma idiin sheega qoys wanaagsan waxaad ku noqonaysaan marka aad xabiibtida aad ku soo gelisay aad ku dhaqdid habeenkii markaad casho geynaysid markaad shugaansanaysid aad soo dhawaysanaysid markaad guursatidna waxaad tidhaahaa macaante carruurta ka soo dhex bax iska soo bedelo ina keen waan ku casho geynayaa nolosha macaan inamadaa sameeya inamadaydii baad tihiin carruurtaydii baad tihiin waxaan idinka jecelahay ma jirto qoys wanaagsan oo qurux badan oo dhisan oo farxad ku waara ee ubadkooda soo kordhiyana aad iyo aad baan ugu farxaya ilaahay ha idinka dhigo kuwa xaaskooda u sabra carruurtoodana u tudha naftoodana ilaahay subxaanahu wa tacaala maxaa hayd ku xidha waxaad moodeen inaan iyakuun haysta idinkana waan idin haysta qoysku maaha nin waa nin iyo gabadh qoysku laba weeyaan waa lamaane weeyaan markaan inamada leeyahay idinku been ha u sheegina idinkuna been ha u sheegina sababtoo waynu sognahay idinkuba markaad u baxaysaan hebla Marian ha inaad qurxoodna xasamaasin ha ho inaad ha $5 wajiga ku soo samaystaan dhag iskaga soo siiyaan hebel ku waalaysi down adiga oo nooc kala baad jaamac u tagaysaa jaamacna isagoo nooc kala buu ku imanaya waa la isguursan Marianna waxay noqon doontaa Marian jaamacna wuxuu noqonayaa jaamac de laba aan iskaranin ba meeshii iskugu yimi isaguna wuxuu leeyahay naa inantii quruxda badneed oo odgoone jinta ahayd meeda waxaad leedahay jaamaca waa maxaa qalaafahan iyo qaloocan iyo noocan kaa soo baxay marka hablow waxa idinkana laydinka doonaya jaamac markuu yimaado uu guriga kuugu soo galo waji kabaha ka horgeyni xageed ku maqnay xageed taagnay xabiibi soo gal xabiib maxaan kuu keenaa xabiib iska qabow orod soo maydho baa idinkana laydinka doonaya sidii ilmo aad dhashay kadinka ha isla taagin waa maxay waqtiga inaad socotaa xageed ku maqnayd adna intaa daa dabeetana markaad adigu xabiibi tidhaahid isaguna xabiibti ku yidhaaho qalbi xayaati carruurtina waxay ku soo koraysaa qoys wanaagsan qoys isjecel qoys maxaa ahayd meel ka wada duulaya qoys lagu raaxaysto bay carruurtaasu ka soo toosaysaan iyakuna waxay noqon doonaan carruur lagu farxo oo lagu maxaa ahayd nasto markaa waalidka waxaan leeyahay ilaahay waxaan inooga rajaynayaa idilkeen annaha laygu daree ubadka allah inoo sakhiro